maxamed xaashi cabdi madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa kormeer ku tagay garoonka weyn ee kubadda cagta degmada Cadaado kaasi oo tababar ay ku qaadanayaan ciyaaryahanno laga soo kala xulay deegaanada galmudug oo lagu wado inay ka qayb galaan ciyaaraha gobolada Soomaaliya kaasi oo lagu wado in 15 bishan ka dhacaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. kormeerka madaxweynaha ayaa waxa ku helinayay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole xubno ka tirsan maamulka galmudug iyagoona ugu horreyn halkaas ugu warbixiyay tababarka ciyaartooyda gudoomiyaha ciyaaraha galmudug Abdulfataax Cabdullaahi Warsame Badsha idmo maantii biriya u dhiman in labadaas galbeed ka bacdi haduu Ilaahay idmo aan ku soo xiri doono caalamiitada sidoo kale waxaan rajaynaynaa haduu Ilaahay ka raali noqdo in ciyaartooydeena markaan aragna qaab dhismeedkooda sida ay u tayeysiin sida ay wax u maqlaayaan kala dambeynta iyo akhlaaqda in waxaan jecelnahay haduu Ilaahay idmo ay heer fiican ka gaaraan koobkan ay u socdaan waxaan kula dardaarmayaa mar walba ciyaartooyda kale oo gobolada kale sidoo kale imaanayaan mar walba samirka iyo akhlaaqda iyo xirfadda intaba isboortigu waxa loo adeegsadaa waa isdhexgal bulsho waxaan jeclahay inaan dhalinyaradeena ay soo barato dhalinyaro aad iyo aad u fara badan oo Soomaali ah oo dunida daafeeda kala joogto Soomaaliya ku kala firaarsan waxaan jeclahay haduu Ilaahay inay waayo aragnimo zaid uga soo ay ka soo raacdo garoonka ay tagi doonaan stadium Muqdisho stadium Kolis على sidoo kale maamulka aad iyo aad balaaran oo dhiirigelinta Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole gudoomiyaha degmada Cadaado ayaa dhalinyarada ciyaartooyda ah ku dhiirigeliyay in la yimaadaan asluub iyo ciyaar wanaag dhalinyarada la tababarayana waxa laga rabaa ciyaar wanaag asluub wanaag iyo xishood iyo koobkoodkeenti iyo inaad ciyaar wanaaga dhibcaan lagu qaataa xishoodka dhibcaan lagu qaataa asluubta marka inta inaad ka tagin la rabaa waxaan la rabaa maanta waxa tiin dadkii ugu horeeyay ee galmudug tababar ciyaar lagu talagalay qaranka aadaysiin dad gobolada in ka casrisan ka yimid oo Soomaaliya gobolada kala hormarsan yihiin ama muddo xoogaa wax u dhisnaayeen ayaad la kulmi doontiin waxaan rabaa idinku ka dambeysay inaad ka hormartiin sida meelo badan ayadoo galmudug ahayd maamulka ugu dambeeyay ay tahay meelo badan maamulada laga horeeyay uga hormarsanahay ayaa waxa la rabaa dhanka isboortigana inaad guul taariikhi u soo haysiin madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa sheegay inay ka maamul ahaan garab taagan yihiin ciyaartooydan loona baahan yahay inay guul ka soo hoyaan ciyaaraha isagoona u ballan qaaday in haddii ay guul ka keenaan ciyaarahan ay abaalmarin qiimo badan siin doonaan ciyaartooyda galmudug runtii waxaa farxadna maanta inaan kala soo qayb galno tababarkan idin furmay oo ugu diyaargaroobisaan runtii ka qaybgalka koobka ciyaaraha ee loo dhigayo Soomaaliya oo dhan maamuladeeda waxaan rajaynayaa waxaan filayaa inaad tihiin qaybtii noo mataleysa galmudug wadanahay adinka tababarkan markii ay heshaan oo dhameystaan ka bacdina oo halka tagtaan waxa idin ka rabaa inaad soo bandhigtaan ciyaar aad u qurxoon aad u wanaagsan kadib koobkaas soo qaadaan deegaanadan waxay ku yihiin wax badan maaragtay ugu horeeyaan gobolada kale ee dalka waxyaabaha ay gobolada kale dalka ugu horeeyaan waxa ka mid tahay ciyaaraha hadda ka hor waxa jiri jirtay waqtiga ciyaaraha gobolka Galguduud oo kale maaragtay basketballka meelaha ugu horeeya Soomaaliya inkastoo footballka xoogana lagu horeeyay laakiin hadda waayadii dambe goboladan aad ugu fiicnaan footballka marka waxa idin ka rabaa inaad soo qaadaan koobka sida ugu dhaqsaha badanna maaragtay ay isaga tiirisaan runtii waxaad la kulmi doontaan challenge badan waxaad la kulmi doontaan waxyaabo badan oo inta hor imaado waxaas oo dhan waxaa la rabaa duruufaha inaad uga gudubtaan annagana waxaan idin garab taaganahay hiliho iyo maaragtay in wixii iyo wax allaale waxa idin qaban karnaa inaan idin qabanno marka koobka soo qaadaan insha Allah waxaan siin doonaa abaalmarinta aan ka soo shaqo maateena anaga dhinacanana si weyn maaragtay in la garab taaganahay duulayna magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa in 15 bishan ay ka dhacaan ciyaaraha gobolada oo lagu wasalay hab maamul goboleed waana markii ugu horeysay ciyaartooy mataleysa maamul goboleedyada ka jira dalka ay ka qayb galaan ciyaarahan Axmed Maxamed Xasan Axmed Suudaani Jubaland TV magaalada Cadaado.